saraakiil sarsare oo ka tirsan Somaliland ayaa goordhow waxa ay xaqiijiyeen inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaq xoog leh oo ay bilaabeen ciidanka beesha Samaroon kuwaasoo la sheegay inay rabaan inay mar kale dagaal geliyaan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. inkastoo xaaladda magaalada Boorame xilligan ay tahay mid degan haddana dhowrkii saac la soo dhaafay dhaqdhaqaaqa halkaasi ka socda ayaa sare maray oo waxaa la arkayaa ciidanka Somaliland oo gaaf wareegaya gudaha iyo bannaanka magaalada Boorame. tirada dadkii ku dhintay mudaharaadyadii xooganaa ee ka dhacay magaalada Boorame ayaa sare martay iyada oo tirada lagu sheegay inay gaartay ilaa 22 ruux. Cabdiraxmaan Cirro ayaa dhowrkii saac la soo dhaafay kordhiyay kulamada ula qaadanayo odayaasha dhaqanka Saylac iyo sidoo kale Boorame ama Samaroonka iyo sidoo kale Ciisaha isagoo u sheegay inay joojiyaan xeerka buugga Ciise oo beesha Ciise ay soo bandhigi lahayd. laakiin Ciisuhu arrinkaasi waa ay diideen oo waa ay ka caroodeen waxayna sheegeen inay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah oo cid walba oo ka hortimaada buuggaasi ay ugu aqoonsanayaan cadowga Ciisaha. inkastoo xaaladdu ay degan tahay oo ilaa hadda wax qashqashaadaha aan laga soo warin magaalada Boorame iyo magaalada Saylac haddana dadka deegaanka ayaa waxaa la sheegay in laga soo xigtay in dhowrkii saac la soo dhaafay la arkay isku dhacyo wax u eeg ciidamo ah kuwaasoo ka dhacaya bannaanka magaalada Boorame waa magaaladii aqoonta xadaaradda iyo ilbaxnimada laakiin maalmihii la soo dhaafay waxay ahayd meel ay rabshado hareeyeen dhiig badanna uu ku daatay. Cabdiraxmaan Cirro oo si weyn u canaantay taliyaha militariga Somaliland ayaa wuxuu yiri maxaad militariga u gelisay magaalada magaalo looguma talageline ka soo saar taasoo la sheegay in markii dambe militarigu magaalada ay iskaga baxeen. ciidanka amniga booliiska ee ilaaliya amniga magaalada Boorame iyo ciidamada RRU ayaa hadda ku sugan gudaha magaalada kuwaas oo doonaya inay gacanta ku dhigaan cid walba oo ay u arkaan inay qashqashaad iyo arbushaadba ka bilaabayaan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. dadka arrimaha la socdaahi waxay leeyihiin beesha Ciise weli kama ay tanaasulin inay soo bandhigto xeerkii buugga Ciise waxaase mararka qaar la arki doonaa isku dhacyo waaweyn oo dhanka ciidamada ah oo Ciisaha iyo Samaroon dhex mari kara haddii aan si degdeg ah xal looga gaarin arrimaha hadda la isku hayo. saraakiil sarsare oo aan la hadalnay si aan wax uga weydiino arrimahan ayaa waxa ay sheegeen in dhowrkii saac la soo dhaafay si weyn loo dareemay culaysyo ka imaanaya dhinacyo kale kuwaasoo la sheegay in ay xaaladda dab kale ku sii shidayaan. Somaliland hadda ma qaadi karto culaysyo kale oo ka imaanaya dhinacyo kale waa in caqligu uu shaqeeyaa oo wixii wada hadal ah la tagaa Hargeyso si halkaasi loogu dhameeyay ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Ciise oo sheegay inuu nabadda doonayo. waan arki doonaa saaxiibayaal wixii ku soo kordho markana qodobadeena kale madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la soo warinayaa in uu ka fakarayo tagistiisa magaalada Kismaayo xilli muran xoog leh uu hareeyay shir dhici lahaa 10 bishan oo ay naga xigto hal maalin oo qur ah. waxaa la sheegay shirku inuu fashilmay waxaana la soo warinayaa in dhinacyo xoog leh ay ku lug leeyihiin ficilada ka dhanka ah qabsoomitaanka shirkaasi. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka kale ayaa la sheegay inay si weyn iskugu maandhaafsan yihiin habka iyo qaabka uu shirku noqonayo iyada oo xogaha la helayahay ay tilmaamayaan in isku dhacyo ciidan xataa ay ka dhici karaan magaalada Kismaayo haddii aan xal laga gaarin caqabadaha jira. Farmaajo waxaa la sheegay inuu si weyn ugu sheegay xubnihii u ololeynayay inuu halkaasi tago inuusan xilligan u diyaar ahayn inuu hor fariisto rag uu sheegay in ay siyaasadda ku kala tageen. Siciidani iyo sidoo kale Axmed Madoobe laftirkoodu waxay rabaan in xal laga gaaro khilaafka oo mucaaradku ay hal gool iskugu yimaadaan shirku si uu mug iyo miisaan u yeesho. laakiin saraakiil ama shakhsiyaad ay ka mid yihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo sidoo kale shakhsiyaad kale ayaa laftirkooda la soo warinayaa in ay markan qaadayaan tallaabooyin kale oo ay doonayaan inay Farmaajo kaga reebaan shirka uga qaybgalayo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. shirku inkastoo baaqday haddana waxaa la soo warinayaa inay jiraan tallaabooyin kale oo la rabo in xal looga gaaro arrimahaasi. qodobkeena ugu dambeeyana duqeymo diyaaradeed ayaa goordhow lala eegtay gaari maraya bannaanka magaalada Cabdalla Biroole ee gobolka Jubbada Hoose. waxaa la sheegay gaariga in la weeraray oo caasi ahaa ilaa hadda lama oga gaariga inay shacab la socdeen iyo inay la socdeen saraakiil shabaab ah laakiin dawladda Soomaaliya saraakiil la hadlay warbaahinta reer galbeedka waxay tilmaameen
inay baarayaan duqeymahaasi iyadoo looga shaki qabo inuu la socday sargaal sare oo ka tirsan kooxda al-shabaab. guud ahaana wararkeennii intaas ayay ku dhan yihiin. ammaano allah.